السلام عليكم دhammaan ma dareemaysa noloshaada u baahanta isbeddel aad ku taamaysa in muddo ah maanta waxaan ku hayaa si dahab u fudud oo aad ku bilaabin karto si aad noloshaada wax kaga beddesho ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta caadada koowaad qor hadafyada maalin kasta why goals are important maxay muhiim tahay inaad qorto maalin kasta hadafyadaada hadaf la'aan waa noloshaada oo khaldanta hadaf la'aan waxba noqon maysid markaad qorto hadafyadaada waxaad ka dhigaysaa maskaxda mid bartilmaameed leh qof walba wuxuu u baahan yahay jihayn qor hadafyadaada maalin kasta qor saddexda hadaf ee noloshaada ugu muhiimsan ee aad rabto inaad xaqiijiso maalinkaas caadada labaadna waxay tahay inaad iska dhaafto waxyaabaha cabashada ku keenaya ama inaad cawato oo aad tiraahdo alla haddaan yeeli lahaa alla haddaan qaban lahay bilow ficil adigu qaad mas-uuliyadda nafsadaada 100% taking your responsibility horumar waxaa keena ficil qofku waxa horumar u keenaa waa inuu ficil sameeyaa oo iska daya cabashada oo ah inuu yiraahdo maalin kasta waxbaan qabanaya haddana uusan qaban noloshu way adag tahay qof walbana ma aha laakiin cabashada kaliya ma keento horumar caadada saddexaad ee u baahan tahay waxay tahay inaad saaxiibo wanaagsan aad yeelato ama kugu dhiirigelisa your circle shapes your future saaxiibkaaga ayaa ah mustaqbalkaaga ka fogow kuwa dadka kaa dhigaya kuwa niyadjabka kugu keeni kara kan mar walba kugu jihayn kara mustaqbalkaaga iyo meel wanaagsan oraha Ingiriis baa waxay leedahay tell me your friend I will tell you who you are oo macnaheedu yahay ii sheeg saaxiibka waxa kuu sheegi doona qofka adiga aad tahay noloshu waa go'aan inaad isbeddesho maanta waxa ugu horeeya ee qofka guuleystaa ka sooca kuwa kale waa kalsoonida haddii aad aaminsan tahay inaad guuleysan karto waxaad horey u qaaday tallaabadii ugu horeysay haddii aad rabto inaad beddesho noloshaada ku dhaqan saddexdan qodob maanta oo ka bilaabo maantaba hana hilmaamin inaad subscribe garayso lana wadaag saaxiibadaada muuqaalka qaybta hoosna inagu reeb faallada fikirkaaga